halkani waa airport laga hirgelinayo isla markaana laga dhisayo gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Cabudwaaq waxaana airport-kani gacanta lagu hayaa oo dhismihiisu iminka uu socdaa in ka badan 5 ilaa 6 bilood dhismaha airport-kan oo aasaaskiisa hore ama bilowgii ay ku deeqday fanka ama qarashka ku baxaya airport-kani hay'adda ICRC oo kamid ah hay'adaha ka howlgala dalka Soomaaliya ayaa waxa ay fulisay mashruucii ugu horeeyay ee oodka qaadista iyo xaaladda ahayd isla markaana lagu baneynayay oo lagu soo saaray meeshii laga hirgelin lahaa airport rasmi ah bilowgii markii gacanta lagu qabtay airport-kani hay'adaasi qandaraaska ay bixisay oo ku sinaa ilaa $80,000 ayaa kadib airport-ku waxa uu noqday mid gabaabsi ah oo aan gacanta lagu haynin markaana ah meel banaan oo kali ah balse u muuqato muuqaal airport oo aan wax dhismaa ama qarash ka dambeeyay aan loogu deeqin ama la gelin airport-kani muuqaalkiisa iminka aad arkaysaan aasaaska iyo hirgelinta airport-kani aad arkaysaan muuqaalkiisa iminka idin muuqda ayaa markaa kadib waxa uu istaagay isla markaana gartay inay dhistaan shacabweynaha ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya maadaama airport-kani uu xudun u yahay isla markaana il muhiim u yahay shacabweynaha iyo dadka ku nool gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Galgaduud waxaana iskaashi iyo horumar dhaqaale kadib dadkaasi ay u istaageen in iyagu ay ku sameeyaan maalgashi iyo hirgelin airport-kani si ay u helaan xudun iyo airport muhiim ah oo ay ku soo higtaan duulimaadyada cirka iyo dhulka kuwaas oo ay u sahli karto adeegyo badan inay u suurtagalaan haddaba gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya marka aanu fiirino oo kamid ah gobolada dhaqaalahooda uu ku tiirsan yahay xoolaha nool ayaan gabi ahaanba lagu arag sida macluumaadka dadku ay isticmaalaan ama gobolada kale ay leeyihiin beeraha wabiyada badda kalluumaysiga duulimaadyada cirka iyo dhulka iyo sidoo kale dekadaha waaweyn ee ku soo higtaan maraakiibta iyo doonaha ee loo isticmaalo ganacsiga noocyadiisa kala gedisan waxaana haddii airport-kana uu hirgalo ama iskaashi dhaqaale iyo caawin loo helo oo xudun iyo lafdhabar u noqonaya gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayadoo dadkuna ay ugu baahi beeli karaan isla markaana ay heli karaan adeegyo badan oo kala gedisan oo iminka aysan haysan haddaba airport-kan oo dhaqaalihii iminka dadku ay iska aruuriyeen ahaa mid gabaabsi ah oo ay ku filneen in ay dhisaan walow ay ka bixi karto dawlad kali ah ayaa iminka waxa uu yahay mid gabaabsi ah oo shaqadiisa ay socon weyday waxaana dadkani ama shacabka ku dhaqan gobolada dhexe dalka Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaanba ay u codsanayaan isla markaana fariin ay u dirayaan dawladaha kala gedisan wadamada islaamka hay'adaha beesha caalamka iyo sidoo kale deeq-bixiyaashu inay ka qayb qaataan gacan ka geystaan sidii loo hirgelin lahaa ama ummadan jirta ee ku dhaqan gobolada dhexe dalka Soomaaliya looga qayb qaadan lahaa waxna loogu qaban lahaa si ay u helaan airport caalami ah oo ay u isticmaalaan adeegyadooda gunti gunaanadkii iyo gabagabadii airport-kani oo ay ku baxday isla markaana dadka gobolada dhexe dalka Soomaaliya ku nool ay bixiyeen qarash gaalaya ilaa $300,000 ayay iminka wadi waayeen oo tabar u waayeen wixii ka dambeeyay xilligan hadda aanu ku sugannahay waxaana ay codsanayaan in loo gargaaro isla markaana gacan lagala siiyo cid kasta oo markaasi awooda ama ku dhaanta tabar dhaqaale mid awoodeed mid maskaxeed iyo sidoo kale mid maalgashi intaba ilaahay waa mahad iskale asagay u sugnaatay Allahna abuurtay waxaan mahad labaad u celinayaa dadka ka qayb qaatay airport-ka oo ku nool dibadda ku nool dhammaantood waan u mahad celinaynaa hadday yihiin gabdho oo aan ognahay waliba gabdhuhu kaalinta koobaad inay ayagu galeen iyo dhammaan wax alla wixii ka qayb qaatay arrintaas waxa weeye aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo u sheegaynaa airport-kii inuu meel aan caadi ahayn hadda uu marahayo oo xasaasiya uu marahayo gabagabana uu ku dhow yahay dhaqaalihiina uu gabaabsi yahay oo wax dhaqaalo hadda anagu gacanta aan ku haynaa aysan jirinin awalba markii hore ayaga aysan soo xil saaray ilaahay baa ka ajar siinahaya annaguna waa u mahad celinaynaa taariikhdana baal dahaba ayay kaga qormahayaan waxaanu mar labaad ka rabnaa sidii ay isu xil saareen oo wanaagsanayd oo hawshaas ay uga qayb qaateen mar labaad inay u laba jibaaraan oo mar labaad ay ka qayb qaataan waxay hawsha u qabanayaan waxa way waa deegaankoodii iyo dadkoodii iyo ayaga naftoodii weeye waxaanu leenahay walaalayaal mar labaad hawshaas inaad ku noqotaan oo sida ugu dhaqso badan waxa way aad noo soo gaarsiisaan meeshan qalab baa jooga waa qalab hadii la ku rooyahay muddo badan meeshan joogay oo muddada uu jooga dhowr bilood ay gaarto waxa way haddana meelo badan iyo cadaadis badan iyo waxba iska jira qalabkiina meesha uu ku daalay muddo badan meesha uu nala joogay waxaanu ka codsanaynaa si waqtiga gabagabada aan uga faa'iideysano inaad dhaqaalihii mar labaad dib ugu noqotaan sida ugu degdeg badanna aad noogu soo jawaabtaan waxaanu leenahay kuwa gudaha sidoo kale waxaanu ka rabnaa ilaahay ajar iyo xasanaad ayaga laftooda ha ka siiyo war waxa weeye meesha ay marayso xoogaal baad u tihiin idinku waa tagtaan garoonka indhihiina aad ku aragtaan waxa weeye meel aan caadi ahayn buu marhayaa
mar labaad waxaan ayagana ka codsanaynaa waxa weeye inay dhaqaalihii mar labaad iska qaadaan u diyaargaroobaan qaybtii hadda ugu horraysay waa bilowdeen waxaanu leenahay kuwa bilaabay ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo waana mahadsan yihiin mahad weyna waanu celinaynaa idinkana inta kaleeta waxaan ka rajaynaynaa sidaas kale inay hawshaa ugu soo diyaargaroobaan haddii ilaahay yidhaahdo intaasaan hadalkayga kusoo koobahaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Okay, waxaa la rogay intaa lacagtaan soo gaartay waxaa la rogay oo elboorkaas lagu rogay oo jay ah elboorkaas waa 2100 mitir dheerkiisu balacaan hadda waxa dhignay waa 35 mitir waxaa la dhigay 1400 oo mitir oo dheerada iyo 35 mitir oo balac waxaa ka dhiman waliba waxaa ka dhiman 600 oo mitir adii ka dhiman 600 oo mitir qiyaasar ugu talagalay elboorkaas markii hore iyo hadafkii aan ku kacanay iyo qiyaasar anagu sameysanaynay wuxuu in u baahan yahay 2,000 loo dhamaantii in 2,000 loo u baahan yahay oo loobkii uu yahay $40 $800 buu dhamaantii u baahan yahay fakar aan dib naga soo garaa meesha waxaan 1400 mitir ku baxday 4,087 intii yaray baa kan wada loo shibaad waxaana dhiman 600 oo mitir baana dhiman waxaa marka la ku leeyahay lacagta ayada aan rabnay waxaan ku leeyahay oo baabuurtii rawaysi jeegas ay leeyihiin 27,560 اللي باوت سكروياش 27,560 العقاس نسوق قري بقول صدر جديد تضربه وديته سيجارة وما عن استعماله شيء كلي عن استعماله بحوالي شيء كبير سيد بيها شدال في نقول باور شغال سو عيد قد شيء يمد الله فيدنا يمد الرئيس عن قالوا استعماله أوليدي بهلاس هو شغال عافية عن قالوا استعمال سكورة وارديني أيكي أربعة وعن قالوا استعمالني سكورة صاف في قاس كأيكون أرابط هوتي والله كأها سكورة كي هل ديجان كأ سكورة كأيكون هوتي وسكورة قلب كعاطو سكورة ديجان وعن قالوا استعمالني بيرها لفت هوش قلب هوش هيا وهذي الرول اللي هذي دي أيد قاضي سليه هذي تبع فيني سليه هذي تبع حريص سليه هنا ويحكم هذا أنا قديم حكم ما دام نمكي قرب كارها يصير له هري لو سو شيكي أنا جينا نأجيالان وحنقول قصباني وحي يبين عن خطأ halkaas waxaan ugu soo baxnay noqday xisaab fara badan oo aan meesha soo dhigay qalabkan meesha maana soo dhigay aan ka qabano hawsha bilowgeed oriyada kuwaana talagelin shidaal kuwaana talagelin sukuurad kuwaana talagelin isaaf kale kuwaana talagelin inta taariikh dib hawsha xisaabtii markaan ku talagalnay oo hamigeena bilow ahaa kuwaana guuldareysan waan ku guuleysan laakiin sida aan qiyaasanayna uu ka faro waan ku guuleysan hadafkeeni wax yar baan loo dhiman laakiin qaabka u xisaabtamayna uu ka faro sidaas awgeed baa la kamar mar labaad in la yeelo ila hawsha bilowda halkaan ay ku yeeray dadka hawsha kiciyaad ahaydeen oo mudnaydeen waxa mar walba maanta in hawsha meesha ay marayso iyo bixinteeda inaad kala qabsataan taladeeda la wadaago qalabka iyo alaabta meesha maraysaan hawsheedana ay dhaqaaqayeen 600 mitir noo dhiban tahay inta lacagana la kulliye si aan ka yeelan waa la ku yeeray maadaama tiiga asliin magaalada waa mahadsan salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaana xarunta muhiimka ah ee ay isla garteen gobollada dalka Soomaaliya in laga hirgeliyo hadii airportkan uu hirgala ay noqotay meesha kaliya muhiimka ah in laga dhiso ama laga hirgeliyo degmada Caabud Waaq Mahad Xasan Diini gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya Caabud Waaq